xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa shaacisay in aanu jirin dastuuriyan sharci sheegaya in la kala diro komishanka cusub ee aan weli hirgelin waxaana xisbiyada mucaaradka ah ku boorisay inay ixtiraamaan shuruucda waddanka u yaala sidaasna waxaa lagu sheegay warmurtiyeed ku qornaa luqadda Ingiriisiga oo xukuumaddu mowqifkeeda ku cadaysay oo uu soo saaray galabta wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland ahna afhayeenka xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland mudane Saleebaan Yuusuf Cali Kore warmurtiyeedkaas oo ay soo turjuntay wakaalada wararka Somaliland ee Solna wuxuuna u qornaa sida tan 17 bishii December 2019 saddexda xisbi qaran ee Somaliland kulmiye ucid iyo wadani waxa ay aqbaleen soo jeedintii gudidii isxilqaantay oo soo jeedisay in la kala diro komishanka dhawaan la magacaabay ee doorashooyinka ee isla markaana lagu bedelo komishankii hore oo waqtigoodii dhamaaday bishii November ee 2019 wadatashigan waxa uu ka dhashay isku tanaasul lagu gaaray in lagaga baxo ismarin waaga ay abuureen xisbiyada mucaaradka ah ee wadani iyo ucida oo diiday in ay la shaqeeyaan komishanka cusub ee golaha wakiiladu ay ansixiyeen 12 bishii November 2019 ee isla markaana gudoomiyaha maxkamadda sare uu dhaariyay 25 November 2019 kadib la fagur iyo wada tashiyo la yeeshay taliyayaal sharci yaqaan ah xukuumadda Somaliland waxa gabagabadii u soo baxday in aanu jirin dastuuriyan sharci qeexaya in la kala diro komishanka cusub ee aan weli howlgelin oo aanay fulin karin madaxweyne ama baarlamaanku midnaba sida kaliya ee lagu bedeli karayaana ay tahay saddexdan qodob ee soo socda qodobka koowaad in ay ku kacaan gaf ama khaladaad qodobka labaad in muddaxileedkoodu uu dhaco ama dhamaado qodobka saddexaad ee ugu dambeeya inay iswada casilaan xubnaha komishanku sidaas darteed soo jeedin kasta oo lagu kala dirayo komishanka oo ku wajahan siyaasadda sida xisbiyada mucaaradku ay ku doodayaan kuma qeexna sharciga sidaas awgeed ma jirto hay'ad sharci oo fulin karta qaraar noocan oo kale ah heshiiska la gaarayana waa in uu ku salaysnaadaa xuduud sharci xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay xisbiyada siyaasadda la yeelatay wada tashiyo 13 January ee sanadkan 2020 waxaana lagu soo jeediyay in ay daneeyayaasha doorashooyinka ay ku qanciyaan komishanka inay iskood iskaga casilaan xilka waxaana go'aankaas ka soo horjeestay xisbiyada mucaaradka ah kuwaasi oo diiday dhammaan fursadihii iyo kulamadii lagu wada tashan lahaa iyadoo ay soo socotay 2 sanadood oo muran ka dhan ah isku xukunka sharciga iyo in la hirgeliyo nidaamka dimuqraadiyadda dalka ee ismarin waagu ka jiray xukuumaddu waxa ay ugu baaqaysaa xisbiyada mucaaradka ah iyo daneeyayaasha kale inay ixtiraamaan hay'adaha iyo shuruucda u yaala dalka oo ay la shaqeeyaan hay'adaha sharciga ku dhisan ee doorashooyinka si loogu gogol xaaro sidii loo qaban lahaa doorashooyinka muddada dheer baaqday ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ka hor dhamaadka sanadkan 2020 xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxaa si buuxda ugu go'an inay ilaaliso nidaamka dimuqraadiyadda dalka si muwaadiniinta dalka loogu xaqiijiyo inay dabaqaan xaq ay u leeyihiin inay doortaan wakiiladooda dawladda heer qaran iyo golayaasha deegaankaba